Assalaamu calaykum. Ereyga is-hormarin waxaa loola jeedaa habka shakhsiga u sameeyo dhowr dadaal si loo hagaajiyo xaaladda shakhsiyadeed, heerka aqooneed ama arrimo kaleba, adoo qaadayo dhowr tallaabo oo fudud laakiinse leh saameyn sii kordhinaysa socdaalkaaga. Tallaabada ugu horeysa waa inaad jimicsi sameyso. Jimicsigu wuxuu gacan ka geystaa isku dayada is-hormarinta, sidoo kalena wuxuu gacan ka geystaa caafimaadka wadnaha iyo halbowlayaasha. Marka lagu daro la dagaalanka culeyska, fikirka iyo kicitaanka wareegga dhiigga, kaasoo kuu sahlayo helitaanka oksijiin ee maskaxda. Tallaabada labaad waa hagaajinta cuntada. Muhiimadda hagaajinta cuntada qofka ee geeddi-socodka is-hormarinta waa in ay tahay tallaabo lagama maarmaan u ah hagaajinta heerkiisa tamarta iyo joogteynta culeyskiisa, taas oo ka caawinaysa inuu yeesho awood sare oo uu ku wajihi karo caqabado cusub oo jireed iyo maskaxeed. Si taasi loo gaarana, waa in lagula taliyaa qofka inuu cuno khudrad fara badan, sababtoo ah cunooyinkani waxay leeyihiin nafaqooyin saameyn togan ku leh ilaalinta maskaxda iyo jirka caafimaadka qaba. Tallaabada saddexaad waa akhrinta. Akhrisku wuxuu gacan ka geystaa sidii loo kobcin lahaa nafta qaab la taaban karo, maadaama buugaagtu ay yihiin isha ugu weyn ee lagu helo xigmad iyo aqoon. Marka hadba inta uu qofku u janjeersan yahay akhrisku, buu aqoon badan iyo xigmad badan ku kasbadaa. Tallaabada afaraad, ka gudbidda cabsida. Isku dayga inaad ka gudubto cabsidu waa mid ka mid ah tillaabooyinka ugu muhiimsan ee geeddi-socodka horumarka nafta, maxaa yeelay baqdintaasi ee qof uu baqayo wax kale ma ahan ee waa wax carqalad ku ah horumarkiisa iyo guushiisa. Tallaabada shanaad, goor hore kac. Xirfadlayaasha waxbarashada ee iskaa wax u qabso waxay soo jeediyaan isku dayga caado, taasoo ah goor hore soo toosidda si loo helo natiijada la doonayo ee is-hormarinta. Waxayna kaa caawinaysaa hagaajinta wax soo saarka iyo tayada nolosha maalintii oo dhan, iyada oo la saadaaliyo xawaaraha maalinlaha ah.